Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa khiyaaray sida u dhantiinba kusoo dhawaada Saf TV. Maanta waxaan ka warrami doonaa Arsenal waa kee ciyaaryahanka saxiixay 4 sano Arsenal iyo geemkii ay la ciyaartay Everton daraad iyo Arsenal iyo geemka ay dheeli doonto. Sidoo kale next ciyaaryahankee la rajeynaya in uu ku xigsado ciyaaryahanka hadda saxiixay 4 sane oo isna la rajeynaya inuu mar dhow heshiiskiisa uu kula jiro Arsenal sii dheereeyo iyo Man City iyo geemkii shalay Arsenal maxay taa uga macneysneed. Haddaba inta aan sii gudagelin arrimaha ka hadli doono, fadlan subscribe kuna soo dhawow Saf TV. Haddaba aan ku bilaabay garabka bidix ee Arsenal ayaa wuxuu saxiixay 4 sano oo heshiis ah kaasoo uu ku sii dareeyay heshiiskiisii Arsenal uu kula jiray. Ciyaaryahanka ayaa ah magaciisu Gabriel Martinelli, ciyaaryahan aad oo la socotaan aadna Premier League looga jecel yahay oo Klopp iyo dad badan ay ka yaabeen. 5 gool ayuu wataa ciyaaryahankana, ciyaaryahan aan idinkaga sheekeynaya ma ahan waxaan kusoo gabagabeynaya hadalkiisa inuu ciyaaryahanka 4 sano uu saxiixay taasoo weliba heshiiskiisii hore ugu dareyso 2 sano oo gadhineed gaarayo ilaa 2027. Haddaba halkaasi waxa weeyaan waa Gabriel Martinelli iyo heshiiska Arsenal uu la galay uu sii dheereysanayay. Sidoo kale Arsenal ayaa waxay la ciyaartay maalinkii Sabtidii ahayd daraad waxay la ciyaartay Everton. Runtii geemkaasi dad badanba siba ay u arkayeen. Geemka waxaa dhacday Arsenal markay ciyaareysay ciyaarta markay soo bilowdayba Arsenal waxaan ku naqaanay seasonkan sidoo u bilaabmay baasas baasas dhaqso ah, aggressive passes loo yaqaano baasaska maanta dhan weerarka zaa'idka ah ee banoonta hore loo wadaayo banoonta aan istaagin. Haddaba geemkani markii la analyze gareynayay waxaa la ogaaday Arsenal in baasaskeeda slow ay ahaayeen weliba han ciyaar aan lagu eedeyn karin gadaal ilaa ay horey ay ciyaaryahanada dhan wada qarteen in baasaskooda oo slow ahaa oo movementigii faraha badnaa ay sameyn jireen inay Arsenal aysan sameynin. Geemkan uu ciyaaryahan walbaba slow uu ahaa oo banoonta sida uu runtii ay u wadi jireen iyo sidii looga bartay ay Arsenal geemkaas ay u sameyn. Sidoo kale dad badan ayaa waxay ku eedeynayaan Jorginho markii la keenay ayaa goolna laga dhaliyo asaga ayaa u sabab ah. Jorginho waxba sabab uma ahayn. Jorginho Partey markii uu garoonka ku jiray Arsenal weli ciyaarteeda aad bay u xumeyd markii la dhaho baasaska hore loo wadaayo weerarka daba dhamaadka aan lahayn waxaa iska lahaa Everton. Asaga markii la saarayna ninkan la keenay goolka laga xiray ciyaarta xoogaa Arsenal way isbedeshay oo Jorginho isbedel ayuu keenay. Hortiis waxaa imaaday oo isbedel keenay oo weliba aad ay u fiicnaan lahayd in mar hore la keeno second half markii loo noqday laga soo noqday la keeno in waxay ahayd Fabio Vieira la keenay Odegaard wuu daalnaa geemkaas. Sidoo kale Martinelli asagana wuu daalnaa oo si fiican sharp ma ahayn in asagana Leandro Trossard la keenay ay ahayn. Saddexda ciyaaryahan markii la keenay waa ciyaaryahanada furfuray Everton runtii gool baa diiday Arsenal mooyaane si fiican u ciyaarayeen. Marka aniga geemka kuma eedeynin runtii dad badan oo ila arkayaba Jorginho inuu ciyaartaas sabab u ahaa laakiin Arsenal ayaa ciyaaryahanadooda idil ayaa geemka ay ka taalay. Runtii ciyaaryahanada kullina comment-yadooda ay post application ay soo dhigayeen ayay ku express gareeyeen in hal ciyaaryahan oo lagu eedeeyay aysan lahayn geemkaas. Hase ahaatee Arsenal waa geemkii labaad ee laga badiyo seasonka siduu u bilaabmay mana ahan mid oo Arsenal rajadii looga qabay ay ku dhaceyso waxa weeyaan waxa la fiirinaya in Arsenal geemkan soo socdo qaabkee ay uga falcelin doonaan falcelis sidee ayayna la imaan doonaan. Sidoo kale baqdinta ugu weyn ee la qabay ayaa waxay ahayd maadaama Arsenal ay ku horkuftay cadowgeedii daba taagnaa ama la tartamaheedii Manchester United oo runtii Arsenal intaysan geemka ciyaarin Arsenal fans islahaayeen dhamaantood Everton ayaan garaaci doonaa 8 point ayaan ka horeynayaa iyagoo welibana hal geem naga sii horeeya ayaga ayaana pressure saarayna taasoo dhici weyday. Maxaa dhacay shalay Man City oo aad ugu farxday Arsenal markii ay ku horkuftay Everton ay kufisay in ay iyagu naftirkooda ay islahaayeen
waxaad ka hor imaanaysaan Tottenham oo welibana xooggiin oo idil ayaad iskugu geyn doontaan maadaama gamekii ka horreeyay Tottenham ay la ciyaareen ay ay ku dhufteen 4-2 mana dhicin oo Arsenal advantage ayay weli advantage ayay haystaan Arsenal waayo gameka Arsenal ilaa hadda ay ciyaartay Premier League waa 20 game Man City waxay ciyaartay 21 game marka hal game ayaa weli advantage haysanaa gamekan soo socda Arsenal ee ay la leedahay Brentford haddii ay badisana 8 dhibcood ayay dusha u saaraysaa Man City oo ayna ku hogaaminaysaa Arsenal maxay samayn doontaa gamekan Brentford Saturday ayuu ku soo aadan yahay gamekaasi Arsenal gameka haddii ay badiso weli waxa weeyaan gamekan in laga badiyay lama dareemayo waayo marka hore halka game ay naga horeysay Man City ayaan haysanay laakiin hadda waxaan nahay Barejo iyaga waxay ciyaareen inaguna 20 game ayaan dheelnay inkasta oo shalay 21 game ay dheeleen inaguna ka haddaan dheelin weli waan isla ekaanayna laakiin pointyada ayaa waxay noqonayaan in Arsenal ay 8 dhibcood ay ku hogaaminayso haddaba waa arki doonaa Arsenal iyo waxa ay sameyso Saturday-dan soo socoto sidoo kale William Saliba oo isna la rajeynayaa mar dhow inuu Arsenal heshiiskiisa oo la sii wado halkaana ay ka sii socoto adeega Arsenal ay qabto sanadkan sida ognahayba Gabriel Magalhaes iyo labada ciyaaryahan aad bay iskugu soo baxayaan runtii Arsenal cilada kaliya hadda haysataa waxa weeyaan in labada fullback aan oranayna fullback right back waliba dhinaca midigta ah ciyaaryahanka fullback-gooda uga ciyaaro ayaa weli ay ka haysataa dhibaato inkasta oo White uu uu yahay ciyaaryahanka hadda meesha noo hayo hase ahaatee ma ahan ciyaaryahankii loogu talagalay positionka inuu dheelo oo Arsenal lagu hayo maadaama markii badi inkasta uu ku fiican yahay Ben White hase ahaatee gamekii shalay oo kale daraad oo kale loo baahnaa asaga ciyaaryahanada aadka uga jiftay ayuu kamid ahaa marka taas waxay ku cadeynaysaa booska inuusan ahayn natural positionkii asaga uu ka dheelo uu dhabta u leeyahay hase ahaatee Arsenal waxaa la rajeynayaa samaga soo socdo in ay ciyaaryahan ay right back ay keento sidoo kale wararkuna waxay sheegayaan in ay Arsenal ay aad ugu cadcadahay in ay ciyaaryahankan Yuri Tielemans ay keeni doonaan iyadana waa arki doonaa khiyaaray marka waxaan leeyahay sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khiyaaradteeda kale waa dansantihiin channelka hala kala kiciyo anuu laftirkii cajis bay igu riday bahalka hala kala kiciyo Arsenal fans channelka ay ku leeyihiin YouTube-ka channelka ugu weyn ayaan doonaynaa inaan ka dhigno channelkan fadlan bahalkan subscribe-ta share-ta iyo like-ta iyo kulli ku wada booba si aan anigana niyad fiican ugu helo mar walbo aan content-iga dhamaantood aan ku soo gudbiyo wax walba Arsenal ku saabsan idinkuna aad uga faa'iideysid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh